بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعندا ودمربا جوجتان كسو دوادا أخباراتك حقتا دالكا مدحدا Soomaaliya Itoobiya la tiriyo oo dhisanayo urur cusub ururkaasi maxaa uu noqon doonaa madaxa xukuumadda ee Galmudug oo shaaca ka qaaday cid iska hor keentay maamulka Ahlus Sunna iyo madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug lacagta dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku bixinayso musharaxiinta uu camray qoor oo la ogaaday wasaaradda arrimaha gudaha oo shir dib u heshiisiin ah ka furtay magaalada Muqdisho shir u dhaxeeya dowladda iyo hay'adaha UN-ka oo Muqdisho ka furmay musharax si dhow saaxiib u lahaa madaxweyne Farmaajo oo diiday in uu tartamo qodobadaasi ayaa daawan doontaan hadii uu raali ka ahaado hadii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biri oo channelkan subscribe sidoo kale asxaabtaada la sii wadaag muuqaalkan aynu ku bilownay markii hore Cabdi Axmed Cabdullaahi Cabdi Dheere ayaa waxa uu laha doorashada Galmudug iyo madaxweynaha Galmudug raadinayay loo arkayay mid filla Soomaaliya ay taageerayso waxaase mudooyinkii dambe muuqday inay kala jab ku timid taageeradaas iyadoo Cabdi Dheere oo saaxiib la ah madaxweyne Farmaajo uu hadda la saftay garabka kasoo horjeeda dowladda ee mucaaradka ku ah sida Odawa iyo Kamaal Guutaale musharaxiinta Odawa Kamaal Guutaale Cabdi Dheere iyo Cabdullaahi Faarax Weheliye ayaa diiday inay doorashada ka qayb galaan inta ay socoto faragelinta dowladda dhexe waxay ku eedeeyeen musharaxiintan inay dareemeen ku shubasho dowladdu ay ku gacan siinayso musharaxa ay wadato ee qorqor shalay oo isniin ahayd ayaa waxa ku ekeed muddada lagu daray araajida soo gudbinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyadoo 30 bishan la filayo in la qabto doorashada madaxweynaha ma cadda sida ay xaaladdu noqon doonto iyo awoodda dowladda Soomaaliya ee ku wajahayso doorashada xilliga qumaatiga ah u socota dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bilowday qorshe cajiib ah oo ay ku suurto gelinayso doorashada Galmudug isla markaana ay doonayso inay ku qabato waqtigii ay ugu tala galeen guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee maamulkaasi dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay 24 saac ee la soo dhaafay ilaa iyo 2 musharax kuwaasi oo lagu tilmaamay inay malxiisayaal u yihiin musharax madaxweyne qorqor sidoo kale xogta aan helnay ayaa sheegayso in lacag gaarayso 60,000 oo doolar la siinayo musharax Axmed Sharaf Falagle iyo sidoo kale Axmed Cabdullaahi Samatar oo xalay la diiwaan galiyay waxaana la sheegay in qaar kamid ah lacagtaasi isku diiwaan galiyeen sidoo kale wararka ayaa sheegayo inay u isticmaali doonaan oo la aan waxba ka jirin wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay doonayso inay doorashada u qabato musharaxiinta lacagta laga bixiyay ee isdiiwaan galiyay iyo musharax ay wadato ee qorqor ifaalo wanaagsan kama soo muuqda Galmudug waxaana laga cabsi qabaa in ay halkaasi ka dhacdo doorasho ka daran midii bay dhaba ka dhacday sanadkii 2018 wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo horey u diyaarisay hanaanka dhab u heshiisiinta qaran kana tashatay guud ahaan dowlad goboleedka dalka ka jira iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa bilaabaysa wajigii labaad ee daadejinta hanaanka loo doonayo in lagu gaarsiiyo ilaa iyo heer degmo daadejintan ayaa ujeedkeedu yahay in dhammaan dowlad goboleedka dalka ka jira iyo maamulka gobolka Banaadir ay yeeshaan hanaan dhab u heshiisiin u gaar ah kaasi oo waafaqsan kana turjumaya hanaanka qaran ee dhab u heshiisiinta Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa ka caawinaysa dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir siday u daadejin lahaayeen hanaanka dhab u heshiisiinta heer dowlad goboleed kulanka soo bandhigida hanaanka dhab u heshiisiinta qaran iyo daadejinta qorshaha dhab u heshiisiinta gobolka Banaadir ayaa ujeedkiisu yahay sidii wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ay uga caawin lahayd in maamulka gobolka Banaadir uu helo hanaan rasmi ah oo dhab u heshiisiin kulankan oo muhiimad gaar ah u leh maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee gobolka oo ay ka mid yihiin maamulada degmooyinka gobolka Banaadir kuwaasi uu hanaankani si toos ah u saameyn doono kulankan oo socon doono muddo 2 maalin ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa hanaankii loo mari lahaa diyaarinta hanaanka qaran ee dhab u heshiisiinta iyadoo la doonayo in maamulka gobolka Banaadir uu ka qaato waayo aragnimo iyo khibrad ku aadan sidii arrimahan uu fulin lahaa
shir u dhaxeeyay wasaaradaha dastuurka, amniga, cadaaladda, arrimaha gudaha iyo federaalka iyo qaar ka mid ah hay'adaha UN-ka ayaa waxa uu ka qabsoomay xarunta wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya. shirka uu gudoominayay wasiirka arrimaha dastuurka Saalax Ahmed Jaamac ayaa waxaa looga dooday dhamaystirka dastuurka iyo sidii xal loogu gaari lahaa qodobada masiiriga ay u baahan tahay wada xaajoodka siyaasadeed. ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka Maxamed Abuukar Zubayr waxa uu ka qaybgalayaasha shirka u sameeyay soo jeedin ku saabsan qorshaha guud ee wasaaradda ee ku aadan dhamaystirka dastuurka bartamaha sanadkan 2020. wasiir Saalax Ahmed Jaamac oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay dhamaystirka dastuurka iyada oo loo marayo hannaan wada tashi. dhanka kale waxaa shirka ka hadlay agaasimayaasha guud ee wasaaradihii ka soo qayb galay shirka iyo mas'uuliyiin ka socday UN-ka iyaga oo sheegay in wasaaradda dastuurka ay kala shaqeyn doonaan fulinta hawshan. ugu dambeyn waxaa lagu ballamay in la dardar geliyo howlaha dhamaystirka dastuurka iyada oo lagu shaqeynayo hannaan wada tashi oo la sameynayo shacabka Soomaaliyeed. madaxda Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea ayaa warmurtiyeed ay ka soo saareen magaalada Asmara oo ay maanta ku kulmeen ku sheegay inay doonayaan in la aaso iskaashi geeska Afrika kaasi oo noqonayo urur cusub. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki iyo wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay inay ku heshiiyeen in ay kala tashtaan madaxda kale ee geeska Afrika sida looga marin dhalin lahaa arrinkan. waxay sheegeen saddexda hogaamiye inay isla qaateen qorshe waxqabad oo sanadkan 2020 iyo wixii ka dambeeyay kaasi oo diiradda saaraya laba hadaf oo kala xoojinta nabadda, deganaanshiyaha iyo amniga, soo kobcinta dhaqaalaha, horumarinta bulshada. dhinaca amniga waxay sheegeen in saddexda hogaamiye ay ku heshiiyeen in la dagaalamaan isla markaana ay baabi'iyaan halis kasta oo ku soo wajahda dhinacyadaasi mid ka mid ah. warmurtiyeedka ay soo saareen oo nuqul ka mid ah na soo gaaray ayaa u qoraa sida tan. saddexda hogaamiye waxa ay yeesheen wada hadallo toos ah oo qoto dheer oo ku aadan xaaladda ka taagan dalalkooda, iskaashiga saddex geesoodka ee u dhaxeeya iyo arrimaha ka soo cusboonaaday gobolka geeska. saddexda hogaamiye waxa ay mar kale ku celiyeen sida ay uga go'an tahay in heshiiska saddex geesoodka ay saxiixeen bishii September sanadkii 2018 waxayna dib u eegeen waxyaabihii ka soo baxay dadaalkooda wadajirka ahaa ee ku aadanaa arrinkan. saddexda hogaamiye waxa ay meel mariyeen qorshe howleed wadajir ah oo loogu talagalay sanadkan 2020 iyo wixii ka dambeeyay kaasi oo xooga lagu saarayo labada ujeedo ee isu dhafan. dhinaca kale ammaanka, saddexda hogaamiye waxay isla qaateen qorshe sal ballaaran oo lagula dagaalamayo isla markaana laga takhalusayo halis waliba oo dalalkaasi ku soo wajahnaan karta. wararka ka imaanaya dalka Nigeria waxay sheegayaan in qarax ismiidaamin ah lala beegsaday dad salaada subax ku dukanayay masjid ku yaala dalka Nigeria. qaraxan ayaa ka dhacay magaalada Groza ee ku taala gobolka waqooyi bari ee dhaca Borno subaxnimadii Axad ahayd. warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in 3 qof oo ku dukanayay masjidka ay ku dhinteen qaraxa, halka wararkan ay sheegayaan in mid ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday uu halkaas ku geeriday, balse ma jiraan ilaa rasmi oo xaqiijin karo khasaaraha rasmiga ah ee weerarkaasi ka dhashay. ilo wareedyo ku sugan deegaankaasi ayaa u sheegay BBC-da in 2 caruur ah ay ka mid ahaayeen dadka halkaasi ku geeriday. waxay dhankooda sheegeen in qaraxa uu ku dhintay canug yar, halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay weerarkaasi, balse maleeshiyaadka Boko Haram iyo dagaalyahanno taabacsan ayaa lagu tuhmayaa. warkii oo khiyaari aad ka daawanayseen xogta dalka waa inaga inta. haddii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe saar si aad ula socoto wararka xigaan soo gelin doono. sidoo kale ha hilmaamin muuqaalkan la sii wadaagta asxaabtaada. nabadgelyo.